ninkii dembiilaha ahaa si uu u hubiyo in gabadhu dhab ahaantii miyir beeshay oo aanay waxba dareemayn wuxuu qaatay irbad oo dhowr jeer ku muday bowdadeeda. markuu arkay inaysan wax falcelin ah samayn neef dheer ayuu iska sii daayay. wax yar ka hor xaflad ay qabatay qoyska Jable gabadhu waxay ka shaqaynaysay sidii gabadh adeegto ah. markay koob cabitaan ah qaadaysay ayay si lama filaan ah ugu dhacday barkada dabaasha. markay ka soo baxday waxay istaagtay hortiisa albaabada muraayada ah iyadoo tuujinaysa dharkeeda qoyan. ma ay ogeyn in indho ka eegaya gadaasha muraayada ay ku fiirsanayeen. wejigeeda quruxda badan iyo jidhkeeda soo jiidashada leh waxay kiciyeen damaca wiilka yar ee qoyska Jable. markii xafladu dhamaatay oo ay qolalka nadiifinaysay wiilkii ayaa u yimid. wuxuu bilaabay hadallo wasakh ah balse iyadu way iska riixday. markay isku dayday inay baxdo ayuu jidka ka hor istaagay oo isku dayay inuu kufsado. iyadoo quus taagan gabadhu waxay qaaday dhalo khamri ah oo ag taalay madaxiisana ku jibisay. iyadoo cabsi darteed cararaysa ayay ku dhacday nin muraayado xidhan. iyadoo u malaynaysa inuu badbaadiye u yahay ayay ka baryootantay inuu caawiyo. laakiin wuxuu ahaa saaxiibkii wiilka yar. halkii uu ka badbaadin lahaa dhulka ayuu si xoog leh ugu tuuray. gabadhu waxay la daala dhacaysay cabsi iyo tabardaro. laba nin oo awood leh hortooda maxay samayn kartaa? waxay ku qasbanaatay inay la dagaalanto inta ay awoodda oo ay ilaahay ka sugto mucjiso. dhanka kale aabaheed ayaa ka welwelay oo baabuur u kaxeeyey filada qoyska Jable ee duleedka magaalada si uu u soo qaado gabadhiisa. wuxuu ku dhawaaqayay magaceeda isagoo meel walba ka raadinaya. si kedis ah ayuu u maqlay qayladeeda oo ka imaanaysa dabaqa sare. isagoo dareemaya in wax qaldan jiraan aabuhu uu orday oo ku dhacay ninkii muraayadaha watay oo albaabka waardiye ka ahaa. markuu arkay wejigiisa argagaxsan aabuhu uu fahmay in wax xun dhacayaan. wuxuu isku dayay inuu gudaha u galo si uu u badbaadiyo gabadhiisa balse ninkii ayaa hor istaagay. labadoodu way isqabsadeen laakiin aabaha dada ah awood uma lahayn ninka ka dadaya. ugu dambayn jaranjarada ayaa laga tuuray. aabihii wuxuu ku dhacay sagxadda isagoo aan dhaqdhaqaaq lahayn. ninkii muraayadaha watay ayaa argagax ku soo orday si uu u hubiyo wuxuuna ogaaday in aabihii neeftu ka goday. isla waqtigaas wiilka yar weli wuxuu isku dayayay inuu kufsado gabadha kore. isagoo aan ka warhayn wixii hoos ka dhacay ayuu ku riixay sariirta dharkeedana bilaabay inuu jeexo sida nin waalan. iyadoo qaylinaysa haddana waxba kama taray. gabadhu waxay ku laaday xoog oo ka riixday kadibna waxay u carartay balakoonka. markuu isku dayay inuu albaabka jebiyo iyadu waxay ka talaabsatay birta balakoonka dibadeeda. wiilka yar wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo inay soo noqoto kuna yidhi ha samayn wax nacasnimo ah. laakiin gabadhu way ogeyd in haddii ay dib ugu noqoto la kufsan doono. si ay sharafteeda u ilaaliso iyadoon ka labalabayn ayay iska sii daysay gacanta. hal ilbiriqsi gudaheed barafkii cad ee dhulka yaalay wuxuu isu bedelay casaan dhiig ah. wiilka yar uu naxay. wuxuu hoos ugu soo cararay si uu gargaar uga raadsado ninkii muraayadaha watay balse wuxuu arkay mayd kale oo yaala. labadii nin waxay ku gabadeen gees iyagoo cabsi la gariiraya. wiilka yar wuxuu u sheegay saaxiibkii in qof kale dibadda yaallo kadibna banaanka ayuu u baxay. wuxuu jilba joogsaday hortiisa gabadha oo miyir beeshay. ninkii muraayadaha watay ayaa raacay. laba qof oo dhintay hortooda ayay taagnaayeen mana ay garanayn waxay sameeyaan. markay in muddo ah is eedeeyeen ninkii muraayadaha watay ayaa maskaxdiisa soo celiyey. wuxuu soo jeediyey inay si qarsoodi ah u qariyaan meydadka. haddii si fiican loo qariyo laga yaabee inay ka baxsadaan dembiga. waxay go'aansadeen inay aabbaha iyo gabadha ka dhigaan inay ku dhinteen shil baabuur. markay meydadka ku rarayeen baabuurka ayaa walaashi wiilka yar iyo darawalkii qoyska guriga ku soo noqdeen. darawalkii Kim markuu arkay sayidkiisii iyo nin kale oo dhiig ku daadsan ayuu weydiiyey waxa dhacay. ma jirin wax ay qarin karaan sidaas darteed Haymin wiilka qoyska wuu qirtay inay qof dileen wuxuuna ku amray darawal Kim inuu sirta ilaaliyo. Jimin gabadha qoyska maalqabeenka ah waxay guriga u timid oo kaliya inay soo qaadato silsiladeeda dheemanka. intay baxaysay ayuu Haymin ka dafay. markay aragtay gacmihiisa oo dhiig leh ayay weydiisay waxa socda. Haymin wuxuu ku yidhi ha isweydiin su'aalo isla markaana degdeg uga bax. dabadeed wuxuu silsiladii dheemanka ahayd ku xiray qoorta gabadha la dilay. si lama filaan ah ayuu Haymin u ogaaday in gabadhu weli neefsanayso. laakiin waqtigaas labadii nin ma ay rabin inay dib uga laabtaan. way iska indha tireen gabadha qorshahoodiina way sii wateen. waxay u kaxeeyeen gaariga meel buur ah oo qoto dheer waxayna aabaha iyo gabadha fadhiisiyeen kuraasta hore dabadeedna gaarigii hoos bay uga tuureen buurta. sidaas ayay qoys farxad ku noolaa ku burbureen. markay daawanayeen gaariga oo rugmanaya labadii nin waxay dareemeen nafis xitaa way dhoola caddeeyeen. dhanka kale hooyadii gabadha waxay guriga ku sugaysay ninkeeda iyo gabadheeda. markay welwel ka qaadi weyday ayay raadintooda u baxday. waxay ogaatay in xafladii dhammaatay goobtiina madhan tahay. markay baxaysay ayay aragtay Haymin iyo ninkii muraayadaha watay oo taksi ku soo laabanaya balse wax shaki ah kama aysan qaadin. gurigeedana way ku laabatay si ay u sii sugto. Haymin iyo saaxiibkiis waxay ku noqdeen villada waxayna si taxadar leh u nadiifiyeen meel kasta. dharkii dhiigga lahaa way gubeen. ninkii muraayadaha watay Sehwan wuxuu soo jeediyey in walaasha Haymin laga dhigo qof kaalin ka qaata. Haymin markaas ayuu wacay Jimin wuxuuna ku amray inay booliska u sheegto in silsiladeedii dheemanka ahayd la xaday. qorshahoodu wuxuu ahaa in la sheego in gabadha Somi ay silsilada xaday dabadeedna ay ka booday balakoonka markii la qabtay. aabahoodna waxay ku sheegi lahaayeen inuu shil galay isagoo gabadhiisa u waday isbitaalka. gabadha la dilay magaceedu wuxuu ahaa Somi. inkastoo ay ka soo jeeday qoys sabool ah haddana waxay lahayd hooyo jecel iyo saaxiib ay sanado wada joogeen oo ay si qoto dheer isu jeclaayeen. waxay ku riyoon jirtay inay noqoto atariisho xitaa kaalinta koowaad ayay ka gashay tartan doorasho ah. tani waxay ka dhalisay masayr Jimin oo iyaduna doonaysay inay atariisho noqoto isla markaana indhaha ku haysay saaxiibka Somi. markay aragtay riyada Somi oo rumoobaysa Jimin way ka xanaaqday. markasta waxay raadin jirtay fursad ay ku eebayso xafladiina si ula kac ah ayay u baahdishay. Somi waxay dhawaan ogaatay inay uur leedahay balse fursad uma helin inay warka farxadda leh la wadaagto saaxiibkeed ka hor inta uusan Haymin weerarin. markay Jimin ogaatay in walaalkeed iyo Sehwan qof dileen way naxday. laakiin baryo badan kadib ayay ogolaatay inay caawiso maadaama ay nacayb u qabtay Somi. iyadoo Somi dhimatay cid kula tartanta ma jiri lahayn. Haymin iyo Sehwan waxay u maleeyeen inay dhammaan raadkii tirtireen. Haymin wuxuu gaariga ku hagaajiyey saacadda wuxuuna iska dhigay hurdo isagoo sugaya saaxiibtiis. markay timid si ula kac ah ayuu u weydiiyey waqtiga. iyadoo
saacadii gaariga ayay fiirisay oo u sheegtay dhanka kale Sehwan wuxuu aaday baar halkaas oo uu habeenkii oo dhan ku qaatay si uu u sameeyo marmarsiinyo alibi maalintii xigtay booliska ayaa goobta yimid waxayna aabaha iyo gabadha u qaadeen isbitaalka markay hooyadii Somi maqashay shilka gebi ahaan way burburtay nasiib wanaag Somi weli waxay lahayd rajo yar oo ay ku badbaadi karto balse xaaladeedu aad bay u liidatay haddii ay noolaato waxaa laga yaabaa inay noqoto qof miyir beelay vegetative state saaxiibkeed ayaa isna yimid markuu arkay iyada oo si xun u dhaawacantay oo miyir la ayuu ku adkaatay inuu aqbalo xaqiiqda dembi baarese oo ah sarkaal khibrad dheer leh ayaa kiiska qabtay markuu arkay raadadka cagaha ee goobtii hore iyo sida shilka loo maleegay wuxuu si degdeg ah u fahmay in tani aysan ahayn shil balse ay tahay dil qorshaysan isagoo adeegsanaya badhan ku haray gaariga dhiig iyo faro laga helay jirka Somi wuxuu si degdeg ah u helay Haymin oo xiray markii baarese su'aalo weydiiyey Haymin wuu diiday inuu qirto dembiga saaxiibtiis ayaa timid si ay ugu samayso alibi markii baarese weydiiyey waqtiga gabadha waxay ku celisay waqtigii ay ku aragtay saacada gaariga Jimin sidoo kale saldhiga ayaa loo yeeray halkaas oo ay ka been sheegtay in silsiladeeda dheemanka ah la xaday sida uu Haymin ku amray baarese oo shaki qaba ma doonayn in kiiskan si fudud loo xiro laakiin isla habeenkaas aabaha dilaaga ayaa la kulmay isaga mid wuxuu ahaa gudoomiye table oo maal iyo awood leh midka kale wuxuu ahaa xildhibaan sare agajuglayn iyo laaluush darteed baarese waxba kama qaban karin arrinta maalintii xigtay Haymin waa la sii daayay kiiska waxaa loo aqoonsaday inuu ahaa shil dhacay xilli tuuga baxsanayeen kiiskan weyn wuxuu soo jiitay dareenka nin la yiraahdo Barknam John hooyada Somi ayaa si caro leh u gashay saldhigga booliska ma aysan aqbalin go'aanka sababtoo ah habeenkaas waxay indhaheeda ku aragtay Haymin iyo Sehwan oo filla ku soo laabanaya shilka ku dhacay ninkeeda iyo gabadheeda waa inuu la xiriiro iyaga laakiin maadaama ay ahayd haweeney keli ah si xoog ah ayaa loo saaray banaanka habeenkaas hooyada Somi waxay si toos ah ula kulantay gudoomiyaha table si ay jawaab uga hesho doodii ayaa isu bedeshay gacan ka hadal xaaskiisa ayaana markay guriga timid aragtay xaaska gudoomiyaha waxay sidoo kale maqashay sir hooyada Somi hore ayuu gudoomiyuhu u kufsaday arrintan ayaa ka caraysiisay xaaska waxay u qaadatay in hooyada Somi si ula kac ah ugu soo dhawaanaysay ninkeeda sidaas darteed waxay darawal Kim siisay lacag badan si uu u dilo hooyada Somi isla markaana uusan ka reebin Somi darawal Kim wuu aqbalay wax yar kadib markii hooyada Somi ka tagtay guriga gudoomiyaha baabuur xawaare sare ku socda ayaa ku dhuftay darawal Kim ma uusan ka dhaqaaqin ilaa ay hubisay inay dhaqdhaqaaq joojisay saaxiibka Somi Kijin mar kale ayuu qalbi jabay dhowr maalmood gudahood qoys faraxsan ayaa gebi ahaanba burburay laakiin arrintu halkaas kuma dhammaan iyadoo la fulinayo amarka xaaska gudoomiyaha darawal Kim wuxuu sugayay fursad uu Somi ku dilo markuu arkay quruxdeeda wuxuu ku kacay falal anshax xumo ah isagoo ka faa'iideysanaya iyada oo miyir la Somi wax iska celin ma karin darawal Kim ayaa si kibir ah u faanay isagoo sheegay sida sayidka yar iyo saaxiibkiis ay shilka u abaabuleen si ay uga baxsadaan ciqaabta wuxuu kaloo ku faanay inuu isagu gaariga ku jiiray hooyada Somi markii Somi maqashay arrintaas gacanteeda ayaa si yar u dhaqaaqday isla markii darawal Kim isku dayay inuu ceejiyo kalkaaliso ayaa soo gashay si ay u hubiso bukaanka tani waxay joojisay qorshihiisii wuxuu been ku sheegay inuu yahay qaraabo fog oo Somi ah kadibna uu baxay laakiin wax kasta oo uu sheegay maskaxdeeda ayay ku qotomeen kadib darawal Kim wuxuu u sheegay gudoomiye Kang iyo xildhibaan Beck in Somi aysan khatar dambe ahayn maadaama ay u dhowdahay geeri sidaas darteed looma baahnayn tallaabo kale markay maqleen gudoomiyaha xildhibaanka iyo xitaa baarese neef bay ka soo wada saareen Haymin wuxuu ka helay wicitaan aabihiis oo u sheegay in wax walba dhammaadeen oo uusan wax ka walwalin arrintan waxay farxad gelisay Haymin iyo hooyadiis tan iyo musiibadii ku dhacday qoyska Somi Kijin ma uusan ka bixi karin murugada xusuusta waqtiyadii ay wada qaateen ayaa ku noqotay xanuun daran maalmihiisa wuxuu ku qaatay oohin iyo khamri Jimin waxay ka faa'iideysatay fursadaas iyadoo Kijin ku sugan xaalad miyir daboolan waxay si qarsoodi ah darooga ugu dartay cabitaankiisa markii uu subaxdii toosay wuxuu si naxdin leh u ogaaday inuu sariir kula jiro Kijin doonayay inuu baxo Jimin ayaa joojisay oo weydiisay ma sidaas ayuu uga tagayaa arrinta waxa uu awooday oo kaliya inuu raali gelin bixiyo wuxuu dareemayay dembi ku saabsan Somi oo weli u dagaalamaysay nolosheeda laakiin Jimin ma aysan ku qasbin inuu mas'uuliyad qaato taa bedelkeeda waxay ku tiri ha ka fiirsado si qoto dheer waxay xustay in Somi hadda sariir ku xiran tahay oo aan dhaqaaqi karin imise sano ayuu Kijin u hurayaa daryeelkeeda ma mudan tahay inuu noloshiisa oo dhan u burburiyo iyada darteed hadalladaas ayaa qalbigiisa gilgilay habeenkaas ayuu Kijin aaday qolka isbitaalka ee Somi inkastoo uu dembi dareemayay si go'aan adag ayuu uga tegay kuna sheegay inuu guursan doono Jimin wuxuu naftiisa necbaday qalbi adaygaas balse ma uusan lahayn geesinimo iyo kalsooni uu weligiis ugu dulqaato daryeelkeeda murugo iyo tabardarro ayaa kala jeexday qalbigiisa sariirteeda dusheeda Somi iyaduna si aamusan ayay u weysay Somi oo aan lahayn aabe iyo hooyo waxaa daryeelkeeda loo keenay haweeney naxariis badan daryeel joogto ah kadib sanad ayaa si dhaqso ah u dhaafay maalin maalmaha ka mid ah daryeelaha ayaa la yaabtay markii ay aragtay Somi oo isku dayaysa inay fariisato weli way tabar yareyd maadaama ay hadda bilaabayso soo kabasho daryeeluhu aad buu ugu farxay oo u jeestay inuu dhakhtarka u yeedho balse Somi ayaa joojisay war ku saabsan soo jeedideeda waa inaan la faafin haddii kale waxaa dhici karta in mar kale la waxyeeleeyo kadib waxaa qolka soo galay Barknam John oo ah adeerka wiilka daryeelaha markii Somi indhaha furtay su'aashii ugu horeysay waxay ahayd ilmahaygii xagee jooga inkastoo jirkeedu dhaqaaqi waayay maskaxdeedu way miyir qabtay intii ay suursanay waxay ogeyd inay uur lahayd oo ilmuhu dhashay laakiin Nam John ayaa u sheegay in ilmihii uu dhintay wax yar kadib dhalashada rajadii ugu dambeysay ayaa halkaas ku baqtiday Somi qalbi jab bay la dhacday si kastaba ha ahaatee murugo ku filan ma aysan haysan dhibaatooyinka oo dhan ee ku dhacay waxaa ka dambeeyay qoyska maalqabeennada table nacayb iyo rabitaan argoosi ayaa qalbigeeda ka shidmay abaha Nam John sidoo kale waxaa dilay qoyskaas sababta daryeelaha sida gaarka ah ugu taxadaray Somi waxay
waxay ahayd inay ka hesho cadeymo dembiyada qoyska. Sanado ka hor aabaha Namjoon wuxuu ganacsi wadajir ah la lahaa gudoomiye Ken. Markii ay dhibaato dhaqaale dhacday, aabaha Namjoon baaritaan ayaa lagu sameeyey wax yar kadibna meydkiisa ayaa laga helay webi agtiisa. Booliisku waxay ku xukumeen inuu isdilay sababo la xiriira ceeb iyo dambi, laakiin ka hor dhimashadiisa wuxuu waraaqo shirkadeed siiyey eedada Namjoon. Dukumiintiyadaas ayaa muujiyey arrimo shaki leh. Namjoon wuxuu go'aansaday inuu runta soo saaro oo uu nadiifiyo magaca aabihiis. Somi aad bay ugu mahadcelisay eedada Namjoon daryeelkeeda. Waxay u sheegtay dhibaatadii foosha xumayd ee soo martay oo ay ku jirto in lagu xadgudbay xilli ay miyir beel ahayd. Markay xusuusatay arrimahaas, ilmadu way ka qubatay. Namjoon iyo eedadiis qalbigooda waa uu jabay markii ay maqleen sheekada oo dhan. Labada dhinacba waxaa ka dhex shidmay rabitaan argoosi. Waxay go'aansadeen inay iska kaashadaan burburinta qoyska Chebol. Somi waxay ku dhaaratay inay ka aargudan doonto xanuunkii loo geystay 10 jibaar 100 jibaar. Hadda sirta ku saabsan soo jeedideeda waa in la qariyaa, waana in si degdeg ah loo raro. Laakiin habeenkaas darawalkii Kim ayaa mar kale soo muuqday. Markuu arkay Somi oo dhalinyaro qurux badan ah, wuxuu mar kale damcay inuu gacanta ku hoos geliyo bustaha.